magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta nabadda adduunka oo sanad kasta maanta oo kale laga xuso caalamka. munaasabadan lagu xusayay maalinta nabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah. Xaliimo Faarax Gudane oo ah madaxa hay'adda SWSO oo kamid ah hay'adaha ka howlgala magaalada Kismaayo oo madasha ka hadashay ayaa ku dheeraatay ahmiyadda ay nabaddu leedahay. maanta waa maalintii nabadda, waa maalin ku weyn adduunka, waa maalin loo asteeyay in la xuso nabadda aan ku noolaanayno iyo midda aan raadin doono. qof kasta oo ku nool adduunka waxaa muhiim ah inuu ka shaqeeyo nabadda. qof kasta oo ku nool Soomaaliya waxaa muhiim ah inuu ka shaqeeyo nabadda. qof kasta oo ku nool Jubbaland waxaa muhiim ah inuu ka shaqeeyo nabadda. qof kasta oo ku nool Kismaayo waa inuu ka shaqeeyo nabadda. gudoomiyaha arrimaha bulshada ee nabad sugidda Jubbaland Ayaanle Axmed Xasan ayaa ugu baaqay bulshada inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loo helo nabad waarta. fariinta aan rabaa halkan inaan ka gudbiyo waxa weeyaan waxaan awal ka shaqayn jiray wacyigelinta bulshada sidii ay bulshadu ugu noolaan lahayd nabad. bariyahan waxaan dareemaynaa in cadow uu lagu soo batay bulshada in ay sii laba jibaarto shaqayntii ay la shaqayn jirtay laamaha amniga. dhanka kale gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Katela ayaa sheegtay in haweenka Jubbaland ay mar walba u taagan yihiin ka shaqaynta nabadda. waxay ka shaqeeyeen xaafadihii, waxay la shaqeeyeen ciidamadii qaybahooda kala duwan, waxay la shaqeeyeen dawladdii, waxay ogaal u noqdeen waxyaabaha ka jira magaalada ogaal u noqdeen. gabar kastaba meesha ay joogto ay waxay kaga shaqeysaa inay telefoonkeeda kaga shaqeyso la shaqeyso ciidamada oo dawladda la shaqeyso oo meel kasta oo wax lagu aasayo ama wax uu ka jiro ayaga ay soo saaraan. sidoo kale waxaa munaasabada hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada Jubbaland Cismaan Xuseen Feeruus, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u istaagaan nabadda. aad baan ugu faraxsanahay maalintan in wasaaradda sportska dhalinyarada ayadoo la kaashanayso hay'adda SWSO inay munaasabadan quruxda badan ay soo agaasimaan ay tahay maalinta nabadda. waxaan leeyahay mudane madaxweyne annagu ka wasaarad ahaan sidaad ogtahay wasaaraddan waxay ka shaqaysaa arrimaha bulshada. arrimaha bulshada marka laga shaqeynayna caqabadooyin fara badan aadan filanaynin ayaa ka soo baxayo, laakiin waxaa loogu guulaysan karaa keliya wadajir in laga shaqeeyo nabaddaas. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo munaasabada soo xiray ayaa dadka Soomaaliyeed ku booriyay inay nabadda ka shaqeeyaan si loo helo horumar dhinacyo badan leh. mudane Ali Marweyn markii la soo koobo nabad la'aani waa nolol la'aan. in nabadda lagu wada noolaado oo nabadda laga shaqeeyo tiirar fara badan oo asaas u ah oo bini aadamka faran ayaa jira. maanta waa maalintii nabadda adduunka 21 September in loo asteeyo maalintaas oo caalamka oo dhan laga xuso xigmad yar ma aha. nabad in lagu wada noolaado maxaa asaas u ah? ku dhaqanka diinta islaamka iyo xadiidka nabiga waa tiirka koowaad. xeerarka ay bulshada degsato oo qaryo walba inta ku wada nool ama dal walba inta ku wada nool ama magaalo walba inta ku wada nool ay samaystaan oo la ixtiraamo oo loo hoggaansamo oo lagu dhaqmo waa tiir kale. cadaalad iyo sinaan iyo qof walba qofka kale inuu xurmeeyo oo waxa naftiisa u wanaagsan uu naftiisa la jeclaado nafta kalena uu la jeclaadana waa xigmad kale. marka haddii ilaahayna khalqay oo bini aadamka makhluuq ilaahay kan ugu sharafta badan uu ka dhigay kitaab u soo dejiyey
rag iyo dumar ka dhigay caqligaa wanaagsan haddii qof walba ku fikiro ummaddan nabadgelya ku wada noolaanaysaa wax ka wanaagsan oo qof keeni karana ma jirto marka nabaddaas ayaa horumarka keenayso aqoonta keenayso Ismaaciil Bashiir Warsame Jubaland TV Kismaayo